taageerayaasha kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Gabiley ayaa kulan ay ku yeesheen hotel Qasri Cabdalle ee magaalada Gabiley waxay si weyn u taageereen hadalkii dhawaan uu soo jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro kaasi oo gudoomiyaha xukuumadda ugu baaqay inayna ka ogolaan doonin hadiiba doorashadu ay ku qabsoomi weydo waqtigii loo qoondeeyay oo ku beegan 26 Juun ee sanadda aynu ku jirno ee 2015 kulanka ayaa waxa ka soo xaadiray cuqaasha dhalinyarta haweenka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee taageersan xisbiga mucaaradka wadani dadkaasi oo dhamaantood si weyn u taageeray hadalka hogaamiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro waxayna xukuumadda ugu baaqeen inay ka go'an tahay xisbiga in ay doorashadu aanay dhaafin waqtigii loo igmaday waxaan halkan maanta isugu nimidnay inaan taageero hool iyo hiilba leh isla berber taagno gudoomiyaha xisbiga wadani iyo halkuu iska taagay doorashada madaxweynaha talada haya waxaan leenahay mudane madaxweyne intii aad xilkan haysay waa lagu arkay adna waad is aragtay oo waad is ogaatay wixii aad lahayd ee aad shalay noogu baaqaysay ee aan kula berber taagnayn ee aan kula garab cararaynay een hoo iyo hiilba kuu siinay maanta waxa laga hayo waa la arkay gudoomiyaha xisbiga ayaynu ku taageeraynaa khudbadii uu ka jeediyey maalintii dhaweyto ayaynu ku taageeraynaa yeeli mayno wax haba yaraatee haddii ay maalin dhaafto haddii aanu nahay annagu reer Gabiley yeeli mayno anaanu caddaynaynaa wasiiradii keliya hayd ee dalka Soomaaliya laba qof baa ka shaqeeya wasiirka caafimaadka iyo wasiirka waxbarashada ayaa dadka waxaan raadiyowga maanta ka arkay in la bedelay oo meeshii uu dadqalatadu ay joogtay la geeyay wasiiradii waxbarashada ummaddu ku hakanaysa taasi waxaan u arkaa ayaan dadka soo korodhay ee uma arko tacliin soo korodhay inuu waxaan ka hadlayaa dadweynuhu wuxuu u baahan yahay waxaan ka hadlaynaa dad gobolkeena wuxuu u baahan yahay waxaan ka hadlaynaa daraheena waxa weeye shalay tan doorashay ku timiday maanta doorashadeena baynu doonaynaa gudoomiyihii shalay tan inagu baa dooranay gudoomiyihii kana inagu baa dooranayna waxa weeye waxaanu leenahay xorriyadeena inaan ku meel marno xorriyadeena inaan wax ku helno xorriyadeena wax ku codsano marka waxa weeye waxaanu leenahay Cirro wuxuu shalay tan ku dhawaaqay ee ahayd doorashadii maxaan ku dhahdaa madaxbanaanida ahayd ee shalay tan maxaan ku dhahdaa go'aanka lagu gaaray waxa weeye waqtigeeda inaynu dhaafto ma doonayno ujeedada kan xisbigu isugu yimid waxa weeye ayagoo ka hadlaya dib-u-dhigashada doorashada uu keenay xukuumaddu waxaanu leenahay anagu ah shicibkaasi ballaaran ee rag iyo dumar iyo ciyaar iyo dhalinyaro iyo cid walba isugu jirta inaanu ka hadlayno dib-u-dhigashada doorashada ay xukuumaddu soo magacowday anagoo diidan waqtigii loogu talagalay doorashada inay dib uga dhigato waxaanu taageersanahay annaga iyo mas-uuliyiintuba inay ku ekaato doorashadu waqtigii loogu talagalay taageerayaasha xisbiga wadani waxaan u sheegayaa xukuumadda Soomaaliland inaan doorashadu xilligeedii ayna dhaafin waayo shalay toona markii dawladda uu taagay waa tii ay ka hadlayeen waa tii ay miidiyaha dooqiyeen waxaan u sheegayaa madaxweyne Tiirayo iyo wasiiradiisa miidiyaha ka bixila waxaan u sheegayaa doorashadu in xilligeedii dhaafin waa waqtigii ay iyagu taagnaayeen ee ay lahaayeen dawladoodu dhul baan kaga soo saaray waqtigii baan taaganay laakiin anagu afaan kula hadlaynaa waxaan leenahay waqtigeedii aan dhaafin doorashadu waa Jaafar Awil Hareeri Carlson TV magaalada Gabiley